kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsin oo aan hadahan oo kale idiin soo timin jirnay waa 20ka bisha July 2019 qodobada ugu doorka roon ee aan idiin haynana waxa kamid ah maamulka Puntland oo go'aan ka soo saaray guddiga farmaajo u magacaabay wada hadallada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo si adag uga hor yimid guddigii uu soo magacaabay madaxweyne farmaajo dawladda Britain oo war ka soo saaray xiisada ka dhalatay safarkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku tagay dalka Guinea Ismaaciil Hurre Buuba oo mowqif aan la filayn ka muujiyay guddiga uu soo magacaabay farmaajo ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu oo go'aan ka gaaraya Ilhaan Cumar sababta meydka madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein loo soo faagay oo la ogaaday daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena inta aan warka u guda galin faahfaahintiisa fadlan daawada subscribe saara channelka gambalaalkana daaro si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo galino haatan warkii ofisan madaxtooyada Puntland ayaa qaadacday guddiga uu madaxweyne farmaajo u magacaabay wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in hanaanka magacaabista guddigaasi aan loo soo marin si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya isla markaana magacaabista guddigaasi ay saacad uga hor imaanayso dastuurka Puntland waxay cadeynaysaa in hanaanka loo maray magacaabista matalayaasha aysan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah lana hareer maray qodobkiisa 53 farqadiisa labaad oo u dhiganta sida tan mar ay wada xaajoodadu si gaar ah u saameynayaan danaha khusay dawlad goboleedyada xukuumadda federaalka ergada wada xaajoodka galaysa waxa kaabaya wakiilo ka socda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka dawladda Puntland hore u cadeysay mowqifkeeda ku aadan wada hadallada maamulka Somaliland iyo dawladda federaalka kaas oo ah in qadiyadaasi ay si gaar ah u taabanayso dawladda Puntland iyo maamulka Somaliland war-saxaafadeedka waxa kale oo la sheegay in dawladda Puntland ee beesha caalamka iyo cid kasta oo danaynaysa arrimaha Soomaaliya u cadeynayso in guddiga la magacaabay ay cadeyn u tahay in aan la rabin xal iyo wada hadal dhab ah sidoo kalena wixii ka yimaada magacaabista guddigaasi ay mas'uul ka tahay dawladda federaalka guddigan oo magacaabay madaxweyne farmaajo ayaa waxa sidoo kale ka hor yimid maamulka Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa si adag uga hor yimid guddiga uu soo magacaabay madaxweyne farmaajo madaxweyne Biixi ayaa si cad u sheegay in aanay guddigaasi marnaba khusaynin Somaliland isla markaana shakhsiyaadka ka soo jeeda Somaliland ee ku jira guddigaasi ay si cidna matali karin Muuse Biixi ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in madaxweynaha Soomaaliya uu sii kordhiyay cadaawadda uu Somaliland u hayo tan iyo intii xilka uu la wareegay isagoona xusay inaysan jirinba tabasho ay qabto Somaliland maalmahan waxaa jira guddi laga magacaabay dawladda Muqdisho oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya guddiga marka la magacaabayo waxa ka horeeyay ujeedada loo magacaabay iyo hawsha loo diray hawsha guddigaasi loo diray waa laba qodob labadaas qodobna midna Somaliland ma khuseeyo mar haddaanay khusayna Somaliland ahaan wixii gudahooda ah faragelin mayno tabashada cidda wax ka tabanaysa iyo walaalaha la jooga waa inta isaga la joogtay oo u shaqeysa marka hadda inta isaga u shaqeysa wax ka tabanayaan isaga u taalaan laakiin Somaliland intii madaxweyne farmaajo xilka yimid waxay kala kulantay cadaawad aan hore loo arag 28 sano Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay guddiga qaran ee madaxweyne farmaajo u magacaabay dib u heshiisiinta iyo wada hadallada dawladda federaalka iyo Somaliland Professor Buuba oo u muuqdo inuusan wax dhib ah ku qabin guddigaasi si ka duwan xukuumadda Muuse Biixi ayaa sheegay in guddida uu magacaabay farmaajo ay dawladdiisa uga shaqeyn doonaan sida ay isugu diyaarin lahaayeen miiska wada hadalka taasi oo ku tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya waqti xaadirkan diyaar u tahay inay bilowdo wada hadalladaasi Buuba ayaa sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay isbedelada laga filan karo guddidaasi isagoona xusay in Somaliland ay u baahan tahay iyaduna guddi uga shaqeeya arrimaha wada hadallada Professor Maxamuud Hurre Buuba oo arrimahaas ka hadlayana wuxuu yiri guddida madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay waa guddi u shaqeynaya sidii ay wada hadallada uga gali lahayd Soomaaliya macluumaadka ay u baahan yihiin inay si fiican u soo darsaan iyo qodobal ay la imaanayaan sida ugu haboon ee ay u soo jeedin karaan iyada oo dawladuna doonayso in ay dunidu ogaato in dhinacooda ay diyaar u yihiin inay wada hadallo bilaabaan Somaliland waxay labada dhinacba u baahan yihiin in si wanaagsan looga shaqeeyo wada hadalka iyo halka laga wada hadlayo laakiin cidda galaysa wada hadalka iyo sida loo gali doono taasi waxa weeyaan wixii guddidan loo igmaday Somalilandna waxay u baahan tahay in dhinaceeda ay ka fikirto cidda arrimahan uga shaqeyn lahayd wuxuu intaasi ku daray waxa laga yaabaa in wasaaradda khaarijigu ay arrimahaas wado laakiin waxa loo baahan yahay in guddi ballaaran oo la oran karo wasaaradda arrimaha dibadda ayay hoos iman kartaa arrintan loo saaro guddidan ay Soomaaliya magacoodayna waa iyada oo muujinayo inay diyaar u tahay wada hadalka wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dalka Britain Harriet Baldwin ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xiisada ka dhalatay go'aanka ay dawladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Guinea Harriet Baldwin ayaa sidoo kale waxay ka hadashay saameynta uu Somaliland ku yeelan karo xiriirkaasi kadib markii madaxweyne Biixi uu socdaal ku tagay caasimadda dalka Guinea
wasiir Harriet ayaa waxa ay ka dhawaajisay talaabada ay dowladda Ingiriisku ka qaadanayso xiisadda u dhaxaysa labada dhinac iyadoo xusay cid xal waara ka gaari karta xiisadda Soomaaliya iyo Somaliland. Harriet ayaa arrimahaasi ka hadashay kadib markii xildhibaanka Liz Truss oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska uu weydiiyay in dowladda UK ay wax qiimeyn ah ku samaysay xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Guinea. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee UK Harriet Baldwin oo arrintaas ka hadlaysa waxay tiri Ingiriisku ka warqabay xiisadda la soo wariyay ee Guinea iyo Soomaaliya labada wadan iyaga mas'uul ka ah xiriirkooda laba geesoodka ah kama warqabna wax saameyn ah oo xiriirkaas ku yeelanayo Somaliland. waxay intaas ku daray siyaasadda Ingiriiska ayaa ah in Somaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aan ka gaaraan xal waara oo la xiriira mustaqbalkooda. waanu sii wadaynaa taageerada iyo dhiirigelinta qorshayaasha wada hadallada nabadeed oo labada dhinac dhex maraya. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa go'aan ka gaaray qorshe ay Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka sare ee wakiilada Mareykanku ku doonaysa inay bisha soo socoto ku booqato daanta galbeed. waxaa sidaas wariyay warbaahinta Israa'iil. Ilhaan ayaa waxaa sidoo kale socdaalkan ku weheliyay Rashid Tlaib oo iyana ka tirsan aqalka wakiilada. Rashid ayaa asal ahaan ka soo jeeda Falastiin hase yeeshee waxay ku dhalatay Mareykanka. Israa'iil ayaa meel marisay sharci u diiday inay daanta galbeed soo galaan dadka taageera dhaqdhaqaaqa loo yaqaan BDS oo ah mid lagu qaadacayo Israa'iil inta ay ka oggolaanayso xeerarka caalamiga ayna ka baxayso dhulalka ay ka haysto Falastiiniyiinta. Netanyahu ayaa sharcigan u adeegsan kara inuu Ilhaan iyo Rashid u diido inay soo galaan daanta galbeed. si kastaba wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa loo ogol yahay inay mararka qaar heer marto sharciga haddii ay diidmada qofka loo arko inay dhaawici karto xiriirka arrimaha dibadda sida uu wariyay wargeyska Haaretz. sida uu leeyahay wargeyska Netanyahu ayaa hadda looga fadhiyaa inuu shaaciyo go'aankaasi ku aadan Ilhaan iyo Rashid oo doodo badan ka dhaliyay Mareykanka iyagoo u doodidooda xuquuqda Falastiiniyiintu loo rogay inay nacayb u qabaan Yahuudda. Ilhaan Cumar ayaa Arbacadii u sheegtay wargeyska Chaos Insider in iyada iyo Rashid ay qorsheynayaan inay gobolka booqdaan toddobaadyada soo socda. labadooda ayaa dhawaan waxay diyaarinayaan sharci xaq u siinaya dadka Mareykanka inay qaadici karaan Israa'iil oo ay taageeri karaan BDS inkastoo ay u badan tahay inuusan ka ansixin aqalka wakiilada Mareykanku. sababta maydka Saddam Hussein loo soo faagay oo la ogaaday warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Carabta ayaa lagu sheegay in la soo faagay maydka madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in dadka degan xaafadda Al-Awja ee ku dhow magaalada Tigrid oo ah halkii uu ku dhashay Saddam iyo goobta lagu aasay ay soo faagayeen maydka isla markaana ku aaseen goob kale oo qarsoodi ah. website-ka Al-Arabiya ayaa ila wareediyay aan la magacaabin oo ku sugan Ciraaq ka soo xigtay in dadka deegaanka ay maydka soo saareen kadib markii ay ka war heleen in ciidamada Shiicada Ciraaq sida militariga u tababaran ee Hashid al-Shaabi ay qorsheynayeen inay bombo ku garaacaan magaalada si ay uga qabsadaan kooxda Daesh. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in sidoo kale la soo faagay meydadka labadii wiil ee Saddam ee Qusay iyo Cuday isla markaana lagu aasay goob qarsoon. dhismada qabriga Saddam Hussein ayaa waxaa burburiyay duqeyn ay la beegsadeen ciidamada isbahaysiga ee Hashid al-Shaabi kadib markii loo sheegay inay gacanta ku dhigaan. si kastaba qabriga ayaa waxaa laga waayay meydka Saddam waxaana kadib la ogaaday in dadka deegaanka ay ka saageen kuna qariyeen goob kale. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu door koran ee warkeena maanta. inta aan warkan iyo warka xiisa badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.